الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى أيام هاد إسكاله وهبين كله إيا دردارا كميدا درداران ذي النبي صلوات الله وسلامه عليه دردارا كان عاوى إنه أركي الدورنو ودردارا النبي عليه الصلاة والسلام وسيي قف كميدا أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه oo la wada garanaya abi dhar radiyallahu ta'ala anhu warda inuu kamid ahaa min qudamaa'i saxaaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ragii ugu horeeyay islaamnimada ayuu kamid ahaa oo wuxuu soo islaamay nabiga kaleey salaatu wassalaam oo maka jooga wuxuu soo islaamay nabiga kaleey salaatu wassalaam oo dadka rumeeyay aad iyo aad u yar yihiin wuxuu ahaa abi dhar al-ghafari radiyallahu ta'ala anhu warda ragii ugu horeeyay saxaabada hadduunan ahaynba kii ugu horeeyey ee la jahra diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala loo dhibaateeyey diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam uu amar ku siiyey inuu aado reerkiisii reer khifaar markaana uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamo u sheegay haddii aan maqashid in aan soo baxay oo aan ka soo tegay magaalada maka ah ii imow markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine yimid ayuu abi dhar radiyallahu tacaala canhu ardaah intaa isagoo dadkiisii reer khifaar dhex joogay diintana gaarsiinayay nebiga u yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo oo wada intaa keliya ma ahee dad badan oo soo islaamay oo reer khifaar ah ayuu nebiga u keenay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meesha marka abi dhar radiyallahu tacaala canhu ardaa wuxuu ahaa daaci ama dadka diinta gaarsiiya dadkii ugu horeeyey wuxuuna aad iyo aad diinta u gaarsiiyey reerkiisii markaa isagu si fiican diinta u gaarsiiyey wuxuuna ahaa nin aad iyo aad u zuhdi badan warac ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay adduunyadan in uu saad yar ka qaato maalin maalmaha ka mid a waxaa la yiraahdaa kama fi kitaab الzuhdi lilimaam axmed iyo keyrkiisaba ay warinayaan tarjamada abi dhar radiyallahu tacaala canhu ardaah alghifaari waxaa la yiraahdaa isaga oo degan meel ayaa qolo soo martiyeen markaasay gurigiisii markay fiiriyeen wax badan kamaynan helin wax nolosha dadka bini aadanka ay haystaan oo badan kamaynan arkin markaasay ku yiraahdeen abi dharow awey gurigaagii alaabtaadii meeday markaasuu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi halkan guribaa ah aan usii guurayo alaabtaydoo dhan xaggaasaan u qaatay buu ku yidhi alaabtaydii oo idilba waan qaatay xaggaasaan u qaaday marka meesha wuxuu caddaynayaa in guriga dambe u guuri doono uu yahay qabrigii marka wuxuu leeyahay guriga cusub aan u guurayo waa qabrigii oo gurigaasaan alaabtaydii oo dhan usii qaadanaya halkan waan ka guuraya halkaasaan u guuraya alaabtaydii oo dhanna xaggaasaan u qaadanaya macnaha waxay ku tusinaysaa abi dhar radiyallahu tacaala canhu ardaah siduu u ahaa nin adduunyadan oga zaahiday abi dhar radiyallahu tacaala canhu ardaah baa marka xadiidkeennan aanu ku jirnaa wuxuu leeyahay awsaanii khaliilii sala allahu alayh waali wasalam bisabcin khaliilkaygii baa ii dardaarmay sala allahu alayhi waali wasalam 7 waxaanu ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan khaliil lahayn maxaa yeelay wuxuu oranaya walow kuntu mutakhidan khaliilan latakhadtu abaa bakra khaliila haddaan yeelanayo khaliil waxaan ka samaysan lahaa abi bakr laakiin nebigu khaliil muunan lahayn salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khaliil maxaa la yiraahdaa asalka luqada waxa weeyaan khallil asaabic kaana nabiy sal slam yukhallilu asaabicah waa dhexgelin weeyaan ereyga asalkiisuna wuxuu ka yimid waa milmid af soomaaliga meesha laga yiraahdo shayga markuu ku milmo sokor haddaad soo qaadood biyo ku darto muddo yar dabadeed sokortii xaggey aaday biyihii bay dhex gashay way ku milantay cusbo haddaad soo qaadood biyo ku shubto waa ku milmaysaa sidaasoo kale weeyaan macnihi khaliil waxaa loo yiri labadan qof kalgacaylkoodii baa isdhex galay jacaylkoodii baa isdhex galay
marka nebiga calayhi salaatu wasalaam muunan lahayn qofu saa u jecel yahay ma jirin macnaha haddaan yeelanayana abubakar baan ka dhigan lahaa. abidar halkan wuxuu odhanayaa awsaani khaliili. xadiid kale inuu arki doonnaa marar qaarkood abu hurayra oo odhanaya awsaani khaliili, oo nebiga calayhi salatu wasalaam abubakar muunan ka dhiganine ma abidari abu hurayra ka dhigtay? maya, sidaa maaha. culimmadaa waxay yidhaahdaan abubakar in kala yidhahda abidar iyo abu hurayra iyagaa ka dhigtay nebiga calayhi salaatu wasalaam khaliil, way jeclaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasaa loola jeedaa. marka abidar wuxuu leeyahay xadiidkiisan awsaanii khaliilii sala allahu calayh waali wasalama bisabcin, 7 shay buu khaliilkaygii ii dardaarmay. kow waxa weeyaan bixubi almasaakiin wa an adnuwa minhum, inaan jeclaado masaakiinta aanan u dhowaado. masaakiinta oo la jeclaado waa sifa ay leeyihiin ambiyada ilaahay subxaanah wa tacaala. waxaa inoogu daliila xadiidkii fi saxiixi albukhaari, xadiidkii heraqla ee badul waxyiga uu ku keenayey imaamu albukhaari raxmat ullahi tacaala calayh. wuxuu odhanaya xadiid abi sufyaan weeyaan ee dheera cabdullahi bn cabaas baa ka warinaya. markii heraqla uu maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu odhanayay qolooyinkan carbeed ha la iigu yeero, weliba qurayshtii ha la iigu yeero, weliba ninka u dhow nebiga calayhi salaatu wasalaam ha la iigu yeero. intii kalena gadaal buu fadhiisiiyey. markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku weydiinayaa su'aalo. su-aalaha ninkan aan weydiinaya hadduu been ka sheego waa beentii dhaha, idinka gadaal fadhiya. abi sufyaan waxaa la fadhiisiiyey heraqle iyo dadkii quraysheed dhexdoodii baa la fadhiisiiyey. su-aal baa la weydiinaya, hadduu been sheego dadku waxay leeyihiin waa beentii. su-aasha marka inuu ka jawaabaa la rabaa. heraqliya isagaa wada hadlaya. su-aalaha la weydiiba waxaa ka mid ahaa yaa raaca, dadka raacaya ee rumeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ma aqniyaa dadkii tanaadka ahaa miya mise waa dadkii fuqarada ahaa? wuxuu odhanayey waxa raacay waa dadkii saboolka ahaa. markaasuu wuxuu ugu jawaabay wahaakada, sidaasoo kale weeyaan atbaacu rusul, rususha dadka raaca inta badan waa dadka masaakiinta ah. dadka ilaahay rumeeya waa dadka masaakiinta ah. allahna subxaanah wa tacaala amar buu ku siiyey nebigiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna, kuwaad naftaada waxaad la ku xabistaa ood naftaada aad la joogtaa kuwa masaakiinta ah ee ilaahay caabudayo subxaanah wa tacaala. dadka sidaa la lahaa aayaadka kusoo degeen waa salmaan alfarisi, waa bilaal alxabashi, waa khubayb bn alarat iyo raggii la midka ahaa ee masaakiinta ahaa. marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryi jiray isaguna, allahuma inii as'aluka xubak, ilaahayo waxaan ku weydiisanaya waa kalgacaylkaaga, jacaylkaagaan ku weydiisanayaa, wa xuba almasaakiin, masaakiinta oo la jeclaadaan ku weydiisanayaa. masaakiinta oo la jeclaado waa wax weyn weeyaan. sidaa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmayaa abidar xuba almasaakiin. awsaanii sala allahu calayh waali wasalam khaliilii rasuulu llahi sala allah alay wasalam bisabcin bixubi almasaakiin wa an adnuwa minhum, inaan masaakiinta jeclaado una dhowaado. dhowaanshahooda waxaa laga wadaa inaad ka warhayso kuwooda dhibaataysan, kuwooda baahan, kuwooda aan wax qabsan karin inaad wax u qabato, inaad ka warhaysid baa la doonayaa. maxaa yeele taa iyada ah waxaa ku imanaysa in adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurtaada kuu xaliyo. oo xadiidkii kale xusuuso nebiga calayhi salaatu wasalaam uu odhanayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu ka hadlayay arrintaa iyada ah, waman kaana fii cawni akhiihi kaana allahu fii cawnih, qofkii ahaada walaalkii gargaarkii ilaahay baa gargaarkiisa noqonaya. waman kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatih, qofka walaalkii dantii u socda ilaahay baa dantiisa u soconaya. marka masaakiintan aad danahoodii iyo howlahoodii aad wado ilaahay baa kuu gargaaraya subxaanah wa tacaala. xadiidka kale fii saxiixi albukhaari nebigu wuxuu ohanayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, abi saciidin alkhudri warinayay, inamaa tunsaruuna waturzaquuna biducafaa'ikum, waxa gargaarka ilaahay aad ku helaysaan oo la idinkugu gargaarayo waa ducafadiina, dadkiina masaakiinta ah. haddaynu masaakiinta ka warhayno oo aynu ognahay xaaladooda oo aanu ka warqabno, ilaahay baa umuurteenna ka warqabayo noo gargaaraya jala wacala. sidaa darteed baa qodobka ugu horeeya iyo dardaaranka ugu horeeya nebigu uu siiyey calayhi salaatu wasalaam abidar wuxuu ahaa ka warhay masaakiinta, noqona mid u dhow. qodobka labaad wuxuu ahaa wa an andura ilaa man huwa taxtii wala andur ilaa man huwa fawqii,
in aan fiiriyo qofka iga hooseeya laakiin aanan fiirinin qofka iga sarreeya. oo taa macnaheedu waxa ay tahay adiga hadduu lixaadkaaga ilaahay kuu dhameeya meeqaan lixaadkooda haysanin, indhihii baad qabtaa, fiiri dadka aanan indhaha lahayn ama isha la ama aan indhaha si fiican wax uga arkin, waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala. dadka dhagaha la fiiri, dadka aanan gacmahooda u dhannayn fiiri, ama gacantiiba la ama gacmihiiba la labadiiba, ama mid ka mida ay tahay curyaan, ama xubnihii faraha aanan u dhannayn, lugihii waa la mid, caqligii waa la mid, quruxdii ilaahay ku siiyey waa la mid. waxaa la mida ilaahay subxaana wa tacaala suu kuugu nicmeeyey. hoy baad haysataa, qabowgaad ka gelaysaa, kuleelkaad ka gelaysaa, waxaad ka gelaysaa roobkii, cawradaadii baad ku asturanaysaa, guri qurux badan baad haysataa. meeqaa bannaanka taagan, meeqaan guryo haysanin maanta. hadday guri haystaana guri qurux badan aanan haysanin, waa nicmo ilaahay wey. wa an andura ilaa man huwa taxti, in aan fiiriyo qofka iga hooseeya dhinac walbay noqotaba noloshii, in aanan dhowrin qofka iga sarreeya. maxaa yeelay ay sababtu tahay xadiidkanuu nebiga ku caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo odhanaya dalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat allah. taasaa waxay u dhowdahay in aydan inkirin nicmada ilaahay subxaana wa tacaala, inaadan xaqirin nicmada ilaahay subxaana wa tacaala. maxaa yeele mar walbo aad fiiriso qofka kaa sarreeya, gaariga kaa quruxda badan wata, adiguna waxaad leedaha waa inaan hela kaasoo kale. guri kaa qurux badan buu haystaa, adiguna waxaad leedaha kaasoo kale goormaan helaya. macnuhu waa maxay? weligaaba waxaad ku jiraysaa hanqaltaag, kor baad u soconaysaa, weligaaba ma fiirinaysid qofka miskiinka ah. soomaaliduna waxay yidhaahdaan miskiin baa miska lagu tunta leh. macnuhu waa maxay? isagu waa mar walbaba kan lagu istaagayo. maya, shareecadu sidaas maaha. wa an andura ilaa man huwa asfala minii walaa andura ilaa man huwa fawqi, qofka iga sarreeya in aanan fiirin. qodobka saddexaad ee nebiga u dardaarmay wuxuu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa an asila raximii wain jafawnii, waa inaan xiriiriyo raximkayga. wain jafaanii, raximku haba igooyo isagu hadduu doono, raximka haba igooyo hadduu doono, laakiin anigu inaan xiriiriyo. xiriirinta raximkuna marka waa dardaaran nebigu caleyhi salaatu wasalaam noo dardaarmayo. raxim waxaa la yidhaahdaa wax allaala wixii ku yimaada xagga aabbaha ama xagga hooyada, ehel iyo qaraabo ah, haba kala dhowaadeen hadday doonaan. siday u kala dhow yihiin bay xuquuqdoona u kala badantay. in aad ilaalisid ood xiriirisid. xiriirintu waxay noqon karaysaa gacanta oo laga xiriiriyo wixii hanti ah, waxay noqon karaysaa ka warhayn afkaaga, warsee la yahay, mala nabad qabaa, ka warrama, caafimaadka ka warrama in la yidhaahdo. waxay noqon karaysaa in iyagii wax la taro, koodii dhibaataysnaa oo tala la siiyo, loo caqli celiyo, shaarkii aad ka baxday oo aad siiso, gabadhu xijaabkii ka baxday ay siiso, laga warhayo. maxaa yeelay raximka xiriirintiisu waa calaamad iimaankaaga ah. raximka oo la gooyana waa calaamad kufri ah weeyaan. ilahay markuu gaalada tilmaamayay tilmaamtooda waxaa ka mid ah wayaqtacuuna maa amara allahu bihi an yuusal, waxay goynayaan wuxuu ilaahay faray in la xiriiriyo. marka raximka xiriirintiisu waa calaamadda iimaanka weeyaan. raximna waxaa loogu magacaabay waa ism min asmaa illahi jala wacala. ilaahay uu siiyey, qofka gooyana ilaahay waa gooyaa, qofka xiriiriyana ilaahay waa xiriiriyaa. haddaad doonaysid in cumrigaaga ilaahay kuu ziyaadiyo, kuuna barakeeyo, wakhtigaagana ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo, raximkaaga xiriiri. raximkaaga xiriiri, aabbihii iyo hooyadii iyo iyaga raximkoodii oo la xiriiriyo, laga warhayo. adiga intii kula xiriirtay oo laga warhayo. taa keliya ma aha, xaaskaaga xitaa dadka ay jeceshahay oo laga warhayo. nebiga caleyhi salaatu wassalaam, khadiija radi allahu tacaala canha xaaskiisay ahayd, way ka dhimatay. xitaa iyadoo dhimatay buu nebigu caleyhi salaatu wassalaam xiriirin jiray dadkii iyada saaxiibadeeda ahaa. caaisho ka warramaysay baa waxay tiri weligay kamaanan masayrin naag sidaan khadiijo oga masayray, lamaana aanan kulmin bay odhanaysay. maxaa yeele markay dhimatay kadib buu nebiga guursaday caaisha radi allahu tacala canha, sidaynu ognahay. waa markuu soo hijrooday kadib buu caaisho guursaday. khadiijana madiinayba makayba ku dhimatayba oo makay ku aasan tahay. sidaa darteeda nebiga caleyhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mid a xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha ayuu maqlay qof dumara codkeeda. markaasuu wuxuu odhanaysay, nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, allahuma haala, yacni allahuma haadihi haala weeyaan. gabadhii haala la oran jiray kaanat ta'tiina ayaama khadiija, waxay noo iman jirtay waagii khadiija.
caaisha waxay tiri radi allahu tacaala canha waxaa dhici jirtay marar qaarkood inuu neef gowraco nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo u qaybiyo haweenkii saaxiibada la ahaa khadiija radi allahu tacaala canha, sawaaxiba khadiija radi allahu tacaala canha. marka qofka waxaa laga doonayaa raximkiisa inuu xiriiriyo, aabihii iyo hooyadii dadka saaxiibada la ahaa inuu xiriiriyo, xaaskiisa uu jecel yahay saaxiibadeeda inuu xiriiriyo. waa shay wanaagsan weeyaan. islaamku marka wuxuu nafaray mujtamacii inuu noqdo mujtamac mutaraabit oo isku xiran weeyaan, iska warhaya, aanan isgoynin. maxaa yeele goyntu waa calaamada gaalada lagu yaqaano, wa an asila raximii wain jafaanii, raximkayga inaan xiriiriyo. qodobka saddexaad ee nabiga u dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, haba i gooyaan. ka afraadu wuxuu ahaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, wa an akhira bilaa xawla walaa quwata ila billah, in aan badiyaa nabiga ii dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, wa an akhira min qawli laa xawla walaa quwata ila billah. maxaa yeele laa xawla walaa quwata ila billah waa kanz min kunuuzi alcarshi weeyaan, sida lafdigii kale xadiidkii kale ku yimid, ilaahayna uu soo dejiyey subxaana wa tacaala. macnaheeduna uu yahay qofka qiritaan uu qirayo inuunan xeelad iyo xoog toona lahayn ta ilaahay mooyaane, ilaahay tiisa weeyaan subxaana wa tacaala. marka qofka inuu qiro xoog inuusan lahayn, xeeladna lahayn, ee ay tahay tan ilaahay subxaana wa tacaala, macnuhu waa istislaam, qofka inuu isu dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala, awood iyo xeelad iyo waxba uusan lahayn, ilaahay tiisana inay tahay mar walbaba subxaana wa tacaala. marka taa oo la badiyana waa dawo weeyaan, sida riwaayadaha qaarkood ku yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inay dawo u tahay quluubta maradka asiiba. macnuhu waxa weeyaan maradka ina asiibaya, qalbiga inaga asiibaya waa aad buu u badan yahay. zamankan aynu joogno dhakhaatiir baa loo tagaa, depression baa ku dhacay, stress baa ku dhacay, baad maqlaysaa. stresska ku dhacay qofka dawooyin baa la siinayaa, dawooyinkiiba haddana side effect kale laho qofka waaba cayilayaa. maxaa yeele dawooyinkii depressionku qaataa baad maqlaysaa. sidaa darteeda hadduu maalin ka tago waa sii wareerayaaba qofka, maxaa yeele dawada side effectgeedu ka mid yahay. ma ogtahay haddaad badiso dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala inaadan u baahanaynin? ma ogtahay haddaad laa xawla walaa quwata ila billahi aad badiso inaadan u baahanayn? ma ogtahay haddaad qur'aanka akhriskiisa badiso inaadan u baahanaynin? depression kugu dhici maayo, stress kugu dhici maayo, jin kugu dhici maayo, waxaasoo dhan kugu dhici maayaan. maxaa yeele alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub. xubinta ay ku dhici lahayd depressionka xagga ku dhaca, madaxa kuma dhaco, lugahana kuma dhaco, gacmahana kuma dhaco, qalbigu ku dhacaa. qalbigii uu ku dhici lahaa dawadiisu waxa weeyaan qur'aanka, alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub. qalbigii waa dawaysan yahayba, uma baahnaba. qalbigii maalintaa adkaartiisii buu akhrisanayaa, qur'aankii buu akhrinayaa, astaqfiru llah, subxaana allah, laa ilaaha ila allah, laa xawla walaa quwata illa billah buu ku hayaa, waa dawaysan yahay, uma baahna dawo kale. laakiin maadaama aynu ka fogaana ilaahay dikrigiisa, allana uu qur'aanka noogu sheegay subxaana wa tacaala qofka ilaahay dikrigiisa ka fogaada, waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin. qofka ilaahay dikrigiisa ka fogaada shaydaan baa wehel looga dhigaa. qofkii balaayaa la sheekaysanaysa, wax kaloo aa la sheekaysanaya, meel kaluu ordayaa, qalbigiisii waa mashquulsan yahay. maxaa yeele shaydaan baa degay, waa guri maran. guriga hadduu maran yahayna shayaaiin baa degta, sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayey. shaydaan baa degaya meesha cidlada ah. sidaa darteeda beydkan khaaliga ah, gurigan maran, inan qalbigu waa guri weeyaan. ima inuu ilaahay dikrigiisa camiro, wa ima dikri shaytaan inuu camiro, wax ka dhexeeya ma leh. hadduu dikri ilaahay camiro, shaydaan waa ka fogaanaya. hadduu dikriga ilaahay laga fogeeyana, shaydaan baa camiraya. sidaa darteeda waxa stresskan iyo depressionkan ku dhacayo qofka ee la tilmaamayo, ilahay dikrigiisii baa meesha ka maqan. waman yacshu can dikri araxmaan nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin. allana wuxuu lahaa subxaanaه wa tacaala aayad kale noogu tilmaamayay, waman acrada can dikrii faina lahu maciishaةa danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa. noloshan adduunyada qofka intuu ku nool yahay, alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wuxuu ku nool yahay maciisha danka ah, ciriiri ah. qalbigaa ciriiri noqonaya, depression baa ku dhacaya, stress baa ku dhacaya, wax kale maaha. dikriga ilahay baad ka fogtay. abidar wasiyadiisii qaadoo la siiyey, adna waa lagu siiyey, qof walba muslim ah baa la siiyey. qodobka afraad nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u dardaarmay wuxuu ahaa, wa an akhira min qawli laa xawla walaa quwata ila billah. qodobka shanaad ee nabiga u dardaarmay wuxuu ahaa, wa an atakallama, in aan ku hadlo bimuri lxaqi, xaqa kiisa kharaar inaan ku hadlo. macnuhu waa maxay? xaqu mar walbaba waa macaan yahay, laakiin marar qaarkood inuu kharaar noqdaa dhici karaysa. waa meeshii soomaalidu ka tiraahdo gari laba qof kama wada qosliso. gari laba qof kama wada qosliso. inaad xaqa siduu yahay aad u sheegto, oo aadan marna xaqa ka leexleexanin.
macnaha waxaa la diidan yahay inaad laba carablaysid, waxaa la diidan yahay inaad labalabaysid oo tiraahdid kana gar leh kana gar leh, maya. inaad tiraahdo waxana waa xaq waxana waa xaq, maya. xaqu waa mid keliya wey. xaqa haba kharaaraade inaad ku hadasho. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay in ay tahay kelimada xaqa oo lagu hadlaa jihaadka midda u sarraysa. afdalu ljihaad kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir. kelimada xaqa oo lagu dhawaaqo sulطaan jaa'ir oo diidan xaqi in xaqa loo sheego, taasaa jihaadka ilaahay u sarraysa subxaana wa tacaala. sidaa darteeda ayaa waxay u baahan tahay naftirkeedaba qodobka lixaad ee dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ahaa wa anlaa akhaafa fi llaahi lowmata laa'im. xaqaa sheegitaankiisa inaanan oga baqanin mid dagaal badan dagaalkii. oo qodobka lixaad weye nabigu isdaba dhigay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. xaqa in lagu hadlo haba kharaaraado, laakiin xaqa naftirkiisa wuxuu u baahan yahay inaanan cid dagaal badan ama geesi ah ama maamul iyo madaxweyne wuxuu doonaba ha ahaado, waanlaa akhaafa fi llaahi lowmata laa'im. mid dagaal badan dagaalkii inaanan oga cabsanin xaqa isaga ah, inaanan oga gabanin marnaba ha yaraatee. waa qodobka lixaad weeyaan, waanlaa akhaafa fi llaahi lowmata laa'im. mid dagaal badan dagaalkii inaanan oga baqanin, inaanan oga gabanin, inaanan dib isu dhigin. qodobka toddobaad ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u dardaarmay abi dar radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa wuxuu ahaa waanlaa as'ala annaasa shay-an. dadka inaanan waxba weydiisanin, qofna inaanan waxba weydiisanin. nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabo badan buu arrintaa u dardaarmay. ka mid ma aha oo keliya abi dar, waxaa ka mid ah xakiim ibni xizaam xadiidkiisii fi saxiixayn ku sugnaa. xakiim ibni xizaam waxaa eedda u ah khadiija binti khuwaylad, oo macnaha magaciisu waxa weyaan xakiim ibni xizaam ibni khuwaylad. nebiga iyo isagana calayhi salaatu wasalaam isku waqti bay dhasheen, ama nebigu wuxuu ka weynaa 3 sana la yihahdaa. xakiim baa weynaa. marka xakiim ibni xizaam saaxiib buu nebiga la ahaa islaamka hortii. intuuna nebiga calayhi salatu wasalaam loo waxyoonin buu saaxiib lahaa, sida abubakar ba saaxiib oo lahaa. laakiin islaamnimadiisu waa dambeysay, fatxu maka ayuu islaami doonaa isagu. marka nebiga calayhi salatu wasalaam buu maalin u yimid, waxbuu weydiistay, waa siiyey. mar labaad buu u yimid, waa weydiistay, waa siiyey. nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yidhi wax aan haysto oon kaa kaydsanaya ma laha. kadibna xadiid buu u sheegay, waa kan danta aanu ka lahayn baa wuxuu ahaa qasdiga aanu ka lahayn. xakiim ibni xisaam baa wuxuu yidhi rasuulka allo wallaahi adiga gadaashaa qof dambe wax weydiisan maayo. waxaa la yidhaahdaa xakiim wuxuu ahaa haddii faraskiisa isagoo saaran karbaashka uu ka dhaco, mid aanan qofna weydiisan waa soo degi jiray, waa qaadan jiray. abubakar radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa markii uu qaybinayo xoolaha, xakiim ibni xisaam qeybtiisa hadduu siiyo ma qaadan jirin. abubakar sidii buu ku dhintay. cumar baa qabsaday taladii muslimiinta. beyt almaal almuslimiin markuu dadka u qaybinayo xakiim waxba kama qaadan jirin. dadku markhaati gelin jiray. cumar bn khataab wuxuu dhihi jiray war xakiim xoolihiisii waan siiyey waana iga diiday markhaati ahaada. macnuhu waa maxay? nebigu ballan ka qaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuusan qofna wax weydiisanin. maxaa yeele waa zuhdiga la sheegaya weeyaan. xadiidkii fii sunan ibni maaja ku soo arooray, nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabiga ahay su-aasha weydiiyey wuxuu ku yidhi rasuulka allah waxaad ii sheegtaa wax haddaan sameeyo ilaahay i jeclaanayo islamarkaana dadku i jeclaanayaan. adduunyada ka zaahid baa lagu yidhi, ilaahay baa ku jeclaanaya. washad fii maa cinda annaas yuxibuka annaas. dadka waxa gacantooda ku jirana ka zaahido ka maaran, dadku waa ku jeclaanayaan. soomaalida waxay tiraahdaa bugto badan iyo baryo badanba waa laysku nacaa. oo macnuhu waa maxay? qofku hadduu meel iska seexdo yidhahdo waa xanuunsanahay, waxaan ii soo qabo, waa xanuunsanahay, xaggan ii rog, waa xanuunsanahay, xoolahan isii, waa lagu nacayaa. bugtada badan iyo baryada badanna waa la mid. weydiisashada badan, hebel wax ii dhib, waa ku siiyey maanta. berri baad haddana aragtay, war hebelo wax ii dhib, maalin saddexaadka kor markuu ka arko waa kaa leexanaya. maxaa yeele baryada badan lama jecla. sidaa darteeda nebigu wuxuu noo diidayaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in dadkii wax aan weydiisano. abi dar xadiidkiisa iyo xadiidka xakiim ibni xisaam iyo cid walba nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku oran jiray cidna waxba ha weydiisanin. maxaa yeelay qof walbo markaa waa ku jeclaanaya. qofkaan wax weydiisanin waa jecelya, isagoo baahan haddana aan waxba ku weydiisanayn. ka maaranka aad ka maarantay ilaahay baa subxaana wa tacaala adna kaa maarminaya qofka isagaa. waman istaghnaa qofka deeqtooma aghnaahu allah, ilaahay baa deeqa subxaana wa tacaala. marka inaad ka deeqtoontid dadka oo aad ka maarantay isku day, ilaahay baa waxaad kaga maaranta ku siinaya subxaana wa tacaala. dardaarankaasina waa dardaaran weyn. intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa insha allah. habeen kale iyo dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu isugu iman doonaa.
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث كان intaana ka bixin waxa warinaya imaamu أحmed في musnadi, imaamu abi yacla في musnadi, imaam ibn xibaan في صaxiixih buu ku warinaya, bayhaqina sunankiisa ayuu kusoo saaraya ee shucabkiisa, waana xadiid صaxiixa. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.